dagaal hor leh ayaa laga cabsi qabaa in mar kale uu dhex maro dowladaha Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa waxa uu hanjabaad uu hawada u mariyay madaxweynaha dalka Eritrea Asis Afwerki. Waxa uu sheegay Abiy Ahmed in dadku ama dunida ay isweydiin doonto halka Eritrea ay ku nooshahay ama guud ahaanba la weyn doono sida uu sheegay. Arintani waxay abuurtay khalkhal cusub oo soo kala dhaxgalay dhinaca amniga marka la eego dowladaha Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea oo loo ogyahay 1991 ay kala go'een. Eritrea hadda waxay haysataa bad ku filan oo ay kala soo degi karto wax walba ay u baahan tahay. Kalluumaysi dhan walba iyo ganacsi walba marka la eego. Balse Ethiopia iyo Eritrea markay kala go'een kadib Ethiopia waxay wajahday xaalad adag oo dhinaca bad la'aanta. Djibouti iyo wadamada deriska ayay iyadu kala soo degtaa badeecadaha marka ay u baahan tahay. Abiy Ahmed ayaa 1 January 2024 inuu ku guda jirno heshiis beenaada la galay maamulka Somaliland xilligaas oo iyaduna ay doonaysay in aqoonsi ay hesho. Markan waxa uu isku dayayaa in uu weeraro dalka Eritrea. Eritrea qudheedo iyadu waxay markaan ku jirtaa diyaar garowgii ugu dambeeyay iyadoo ciidamadeeda cirka iyo sidoo kale kuwa dhulka heegan ay gelisay. Abiy ayaa waxa la warinayaa ama la xaqiijinayaa in ujeedka ugu weyn ee Soomaaliya ka lahaa dhinaca badda aysan ahayn balse uu rabay dadka inuu ku soo jeediyo Soomaaliya. Abiy markaan waxa uu u dhaqaaqay dagaal kale oo isaga iyo sidoo kale Eritrea dhexmara. Masar oo iyaduna ku soo biirtay dagaalka gobolka Geeska ayaa iyaduna dhinaceeda waxay wadaa sidii guud ahaanba dawladda dalka Eritrea ay kaga caawin lahayd dhinaca tababarada iyo sidoo kale militariga. Arintan ayaa waxay noqotay in khalkhal cusub oo soo galo dawladda dalka Ethiopia ee uu hogaaminayo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Masar waxa la xasuustaa in Soomaaliya 2 jeer oo kala duwan hub ay keentay. Markaana waxay isku dayaysaa in cilaaqaad kale ay la sameeyso wadamada gobolka Geeska oo Eritrea ay kamid tahay. Masar wax walba oo Ethiopia lagula dagaalami karo ayay hadda sameynaysaa. Dadaalkii ugu dambeeyay ayay ku jirtaa. Marka la eego dagaalkan wuxuu noqonayaa 3 geesood Ethiopia ka dhana waa Soomaaliya, Masar iyo sidoo kale Eritrea oo dhinac wada ah marka la eego. dawlad walba iyadu waxa isku dayaysaa sidii Ethiopia wax faragelina aanu ugu sameyn lahayn. Masar oo webiga Nile dawladda dalka Ethiopia ay ku cariirinayso marka la eego. Ethiopia dhinaca kale Soomaaliya ayay bad ka rabtaa. Eritrea sida ay islamida ayay doonaysaa in ay dhulka ku masaxdo sida sheegaba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. Markan waxay u muuqanaysaa Ethiopia inay galayso xaalad adag oo dhinaca nabadgelyo darrada ah. marba haddii Ethiopia ay faragelisay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya. Arintan ayaa waxay noqonaysaa in midow uu ka yimaado dhinacyada Masar, Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea marka la eego. Si guud ahaanba meesha looga saaro Abiy Ahmed iyo sidoo kale kooxdiisa ee khalkhalka raba inay geliyaan gobolka Geeska. Arintan ayaa waxay u muuqanaysaa in ay noqonayso baaba u dambeeyay ee Ethiopia. maadaama dawladda dalka Ethiopia marba dhinac u dulduulayso. Salfadheena malaha Ethiopia xilligan marka la eego oo halka ay sida tooska u wajahayso ma taqaan. Su'aasha la isweydiinayo ayaa ah Ethiopia halka ay ku dambeyn doonto maadaama ay faraha la gashay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya. Halkaasna waxa ka dhalan kara isbahaysi dhan walba ah oo markaas noqonaya in Ethiopia la cirib tiro oo guud ahaanba meesha laga saaro. daawade aragtidaada maxay kula tahay?